Shirka toddobaadlaha ee Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa looga hadlay xaaladda dhaqan-dhaqaale ee dalka iyo tan siyaasadeed. Shirka ayaa diiradda lagu saaray xaaladda abaaraha dalka, Covid, iyadoo halkaa warbixin ay ku soo gudbiyeen wasaaradaha ku shaqada leh amniga iyo difaaca dalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo shir gudoominaya kulanka Golaha Wasiirada ayaa hay'adaha ammaanka faray inay laba jibaaraan feejignaantooda ku aadan sugidda amniga dalka inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan maadaama cadawgu uu doonayo inay dhibaateeyaan shacabka Soomaalida ee cibaadeysanaya. Maxamed Ibraahim Macallim wafayeenka xukuumadda ayaa ka warbixiyay shirka Golaha Wasiirada go'aamadii waaweyn ee ka soo baxay maanta. Waxaa goordhow soo gabagaboobay shirkii Golaha Wasiirada dowladda Soomaaliya oo uu shir gudoominayay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Shirkaas waxaa looga hadlay arrimo kala duwan oo ajandayaal kala duwan ayaa maaragtay lagu soo qaaday. Waxaa warbixino laga dhageystay wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga oo ka warbixiyay warbixinadii u dambeeyay ammaanka. Sidoo kale waxaa wasaaradda caafimaadku inay ka warbixisay caabuqa coronavirus iyo xaaladihii u dambeeyay iyo dadaalada socda. Waxaa sidoo kale warbixino laga dhageystay wasaaradda maaragtay guddiga abaaraha oo ayana ka warbixiyay xaaladda gurmadka soconaya gobolada ka soconaya maaragtay dawladdu ay hormuudka ka tahay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo shirkaasi gudoominayay waxa uu kula dardaarmay oo sheegay in dadka Soomaaliyeed ay u diyaar garoobayaan bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan. Sidaa darteedna wuxuu ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan in ay qiimo dhimis u sameeyaan shacabka, in ay isgargaaraan. Xilliganna ay tahay xilligii maaragtay laga wada faa'iideysan lahaa qofka kale walaalkiisa dhibaataysanna inuu gacan siiyo. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu ka hadlay arrimaha ammaanka. Waxa uu sheegay in ammaanku uu aad muhiim u yahay xilliga bisha barakeysan si dadka ay u helaan fursad ay ku cibaadeystaanna. Laamaha amnigu waxa uu kula dardaarmay oo maaragtay ku booriyay in ay sare u qaadaan oo feejignaan xoog leh ay muujiyaan xilliga bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa sidoo kale maaragtay warbixin ayana maaragtay laga dhageystay wasaarado kale. Ugu dambeyntiina waxaa halkaa lagu ansixiyay guddiga xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka oo maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha ay soo gudbisay. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.